Sheekadan waxay ku dhacday aabbahay markuu ahaa cunug yar, xaafaduu joogay kaligiis, wuuna iiga sheekeeyay. Anna sheekada markaan maqlay aadaa uga walwalay. Xaafadda kaligiisuu ku ahaa aabbahay, wuxuu daawanayay TV. Suu TV-gii u daawanayay, TV-gii wuu isdamiyaba. Naxdin wuu yaabay aabbahay, wuxuu isdhahay ma korontadii aa baxday. Aabbahay markaas wuxuu jiray 10 sano. haddana wuu isdamiyay TV-ga, haddana waan ku laabtay. Markii dambe waxaan go'aansaday inaan raadiyo remote-ka. Waxaan ka raadiyay dhinacaas kale, qololkaas kale. Markaan qolka soo galay waxaan arkay nin oo meesha fadhiya qolka oo remote-ka gacanta ku haya. Wuxuuna lahaa timo madow ah oo dhaadheer iyo indho madow leh. Aabahayna markaasuu soo orday sida gabar yar oo qaylinaysa. Wuu soo orday, wuxuu aaday xaafad deriska ah. Wuxuu ku yiri nin baa meesha igu jira, booliiskii la wacay. Isla markaa ninkii waa la xiray, muusan dhaqaaqin, waxaana lagu xukumay 3 sano xariga. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday runtii. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So you make me